الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا نجوتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ku jirnaa xalaqadii barakeysneed oo ku saabsaneed guurka fadligiisa muhiimadiisa sideen ku doortaa qof nolosha ila wadaago hadduu dhibimaada sideen ku xaliyaa iyo waxyaalaha la mid ah. waxaan ka soo sheekeynay 3 xalaqo ayaan ka soo sheekeynay introduction muqaddima guurka u sameeynay ayaan ka soo sheekeynay ilaahi guurka muxuu ka rasuulka sallallahu alayhi wasallam ka soo sheekeynay tii labaad waxaan ka soo sheekeynay xalaqada labaad sideen ku doortaa nin wanaagsan sideen ku doortaa oo nolosha ila wadaago. xalaqadii shalay markaan soo gelinay kadib su'aalooyin aad u tiro badan ayaa soo gashay oo badi u maleynay gabdhahan ay ka imaato nin wanaagsan ma jira oo hadda sheegaysid oo nafta lagu aamini karo ma jira iyo tacliiqaad aad u tiro badan comment badan la soo sameeyay su'aalooyinkaas ay idin ka ballan qaaday mid ayaan u kor istaagayna waana ka jawaabi doonaa wixii tafsiil u baahna waa gelinayna. hase yeeshee maanta san hore idinkaga ballan qaaday waxay noqonaysaa ninka sideen ku doortaa zawja wanaagsan xaas wanaagsan oo nolosha ila qaybsato sideen ku doortaa. kow labaan kala qaybinayna intaadan gelin waxyaalaha lagaaga baahan yahay ayaan gelinaa. kowga hore markaa niyeysad oo aragta nafsiyan inaad diyaar u tahay haddaadan diyaar ahayn gabdhaha muslimiinta ha lagu goynin. marka hore diyaar inaad u tihid xoolo ahaan dhaqaale ahaan inaad diyaar u tihid aloo baahan yahay inaad haddaadan u ahayn gabdhaha muslimaadka lagu goynin. kow markaad diyaar noqotid nafsiyan diyaar u noqotid dhaqaale ahaanna aad diyaar u noqotid waxaa loo baahan yahay qoftaa gelays intaadan gelin wareyso war gabadhaasaan rabaaye yaa warka haayo ka wareyso. markii lagaaga sheega hadal wanaagsan tan saddexaad lagaaga baahan yahay waxaa waaye istikhaara la imo istikhaarayso. tan afaraad markay istikhaaraysatid ay kuu soo baxdo waxaa loo baahan yahay توكل على الله إن إلهي ترى سارتت فإذا عزمت فتوكل على الله هلا بلبين قل مركز تنشناد لقايا باهي قورك انت قالين وحلو باهي إنا أني ستتقفتاس إنا أقور سنيست عفة إنا نفط هذا كدورتت أيالو باهي شنتاس انت قورك قالين أيالو باهي حتى بقفك دورنيس على مدى لو قرنا محيطة أما سيمو تورتا كو حلو باهي قبل إني صالحا نقطه. رسول صلى الله عليه وسلم محور تنكح المرأة ل4 قبل وحلو قرسدا 4 سبب وحاكمد قروح ذا لو قرسدا وحوله ذا لو قرسدا ونسب كذا لو قرسدا دينتي ذا لو قرسدا. رسول صلى الله عليه وسلم محور قبل دينته له قرس تربت يدك إلهي كو بركة يقعنت هذا تنلبات لقى باهي قورك laga baahan yahay waxa inay noqoto gabadhan ka soo jeedo usra wanaagsan bii'a wanaagsan family wanaagsan oo hadhow wax kula qaban kara inay ka soo jeedo ayaa loo baahan yahay. tan saddexaad loo baahan yahay waxa inaad dooratid gabdhaha waxa dhalo si ku ogaanaysan gabdhaha soo sheegnay shalay wiil waxa dhalay raadso gabdhahan waxa loo baahan yahay gabdhaha waxa dhalay si ku ogaanaysan familkeeda fiiri habar yarteed iyo dooyinkeeda dadku u dhow inaad fiirisid ayaa loo baahan yahay. tan afaraad lagaga baahan yahay waxaa waaye inaad raadsatid gabar isku isfahmi kartaan isku culture aad tihiina kuu fiican marka intaas soo gudubtid taas ayaa kuu fiican. su'aala meesha sometimes la soo geliyaa oo ninka markuu rabo inuu guursado ma gabadha u fiican mise garoobta u fiican. su'aal mashruuba su'aashaasna waxaa waa general speaker haddaan si caadi u hadlayno wax masaalix kale ay jireen qofka haduu yiriyo waxa u fiican gabar inuu guursado ayaa u fiican laakiin sometimes waxa laga masaalix inay soo gasho meesha ay garoobta kaga fiicnaanaysa gabar kaga fiicnaanaysa laakiin general speaking gabadha iyo garoobta qofka waxa la rasuul sallallahu alayhi wasallam markuu u yimid ninka saxaabigu yimid waa guursatay garoob maxaa gabar u guursaweysay laakiin masaalix ku jirto ayuu marka dambe u sheegay. waxa loo baahan yahay 5 arrin inaad sameeysid intaadan guursan 5 arrin intaadan u gudbin 5 arrin inaad sameeysid oo ina adiga nafsiyan diyaar tahid ina la tashatid istikhaara ina sameeysid tawakkul ina sameeysid ilaahay tala saaratid kadibna oo cifa u niyeysatid markaa gashid kadibna afarta arrin lagaga baahan yahay gabadha saalix inay noqoto diinteeda u dooratid inay usra wanaagsan ka dhalatay inay gabar wax dhalaysa ay tahay iyo inaad iyo hal muhiim kala jirto gabadha qaraabada ma guursanaa mise ma guursanaa. culimada waxay dhahaan gabadha qaraabada haddii gabar ka fiican waysid guurso laakiin haddii aad heli kartid gabar qaraabada ka baxsan heli kartid. ibn Uthaymin rahimahullah markuu ka hadlay sharxa kitaabkiisa sharxaya fiqiga wuxuu yiri haddii la helo maslaxa ay ku jirto gabadha qaraabada way fiican tahay haddii kalena waxaa fiican gabadha qaraabada ma gabadha banaanka fiican masaalix badan ayuuna sheegay. wuxuu yiri
haddaa gabadhi wiilka dii qaraabeen hadday isdagaalaan labada faamil waa isgoynayeen tan labaad wuxuu yidhi caruurtan waxaa fiican faamil kale saa ku yeelatidne saasaa fiican wax nas sharci kuma soo aroorin xadiidan kuma soo aroorin aayadna kuma soo aroorin guursa ama waa fiicanta ama ma fiicno maslaxada ayay u noqonaysaa marka qof walbo maslaxadiisa fiiriyo marka shantaas arrin ayaa loo baahan yahay oo qabli zawaaj iyo shan bacdi zawaaj ilaahi subxaana watacaala waxaa idin weydiina inuu idinku irsaaqo zawja saalixa baaraka allah fiikum salaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu